Bismillahirrahmanirrahim. Soo dhawaada dhamaan kanalka daawanaysa waa Boost-Pix. Magacaygu waa Maxamed Charles. Waxaa jira muuqaalkii kan ka horeeyay waxaan uga sheekaynay ama uga hadalnay sida loo samaysto affiliate network la yiraahdo JVZoo. Maanta waxaan rabnaa inaan isla aragno sida alaabta looga doorto oo alaab inta looga soo baxo aad suuqin karto. alaab aad si affiliate ahaan aad u noqotido inta aad ka dooratid sida aad la soo bixi lahayd oo aad suuqayn lahayd. Marka xogaa waa ka aragnay laakiin awoodda ma aanu saaray. awoodda waxaan saarnay sidii aan u samaysan lahayn oo aan account uga furan lahayn muuqaalka hore ku saabsanaa, laakiin muuqaalkan waxaan awoodda saaraynaa inaan isla aragno sida alaabta looga doorto. muuqaalka haddii aad kanaalkeena ku cusub tahay fadlan ugu soo biir. waxaan uga hadalnaa waxyaabaha la xiriira online businesska iyo hababka online lacagta looga sameeyo. sidoo kale mowduucyada kale technicalka ah oo la xiriira iyagana waa uga sheekayn doonaa. lagu xirno lagu soo biir. aanu gudubno marka mowduuceena. asxaabta mar kale waxaan joognaa mid ka mid ah account-nadayda ku leeyahay JVZoo oo aan ugu talagalay tijaabada iyo inaan ku tuso idinka wada. waxaan rabaa marka in marka u horeysa laba meelood baa laga doortaa alaabta aad rabtid inaad suuqayso. waxaad dul tagaysaa affiliates ayaad soo furaysaa. marka aad soo furto waxaad ku dhufanaysaa find products. okay, halkan ayaa lagu keenayaa. halkan marka waxaan rabaa inaad fahantid alaabta waa kuwan marka waxaan oo dhan waa products. xaggan marka waa product name, xagganna waa affiliate profile-ka ama alaabtan inaad codsatay weli inaad weli codsan iyo in lagaa diiday in aan weli lagaa diidin waxaas halka ku soo qormay. hadda alaabtan oo kale weli ma codsan request approval, tan oo kale waa denied, waa la diiday intaan codsaday la diiday. marka waxa saarka lagu soo qoraa. tanna waa xilliga la launch gareeyay. taybalkan baan rabaa inay la fahantiin sold waa maxay inta laga iibsaday alaabta. tan oo kale hadda 38,000 iyo wax ka badan baa la iibsaday video maker software-kan. okay, kan waa conversion rate. conversion rate-ka waa rate lagu cabiro alaabtan inta iibsanta. tusaalahaan oo kale markaad suuqayso inta percentage rate waxaa jira ama saami lagu xisaabtamo oo average ah inta alaabtaas u iibsanto ama ay sale isu bedesho. EBC-gu isagana waa rate kale oo lagu cabiro commission-ka alaabtan aan ku leeyahay anigu iyo marka la isu qaybiyo inta click aan u keeno ama inta qof ay alaabta u keeno. average price-na waa xaway qiimaha caadiga ah ee alaabta joogto. commission-kuna waa inta aad ku leedahay. refund-kuna waxa weeye inta alaabta aad la soo celiyay percentage-ka la soo celiyay. tusaalahaan oo 5.9% oo waxaa jira refund oo la soo celiyay. waa iska wadanaynaa xoogaa waxaad midaan in uu sharqan yara ay dibadda ka yeelayso. marka haddii aad taybalka marka fahantay waa performance-ga ama alaabta performance-geeda baad kala socon kartaa ama ka fahmi kartaa. marka alaabtaas mid ka dooranaysa. alaabta marka mid ku qanacday baa waxa oranaysa request approve. halkan aad ku keenaya marka muuqaalka hore hadda soo daawatay meeshaan waa soo aragnay. bogan waa bogan laga codsado alaabta. marka bogan lagu keeno marka alaabtii waxa samayn kartaa inaad halka aad alaabta fiirisid oo view sales page aad tiraahdo si aad alaabta u soo aragto nooceeda iyo qaabka ay tahay iyo waxay tahay haddii aad u baahan tahay. marka waa sales page-ka ama bogga lagu iibinayo alaabta. waa kan muuqaalkan yarkaas wuxuu ka sheekeynaya alaabta ka sheekeynaya. Hi, it's Todd Gross and welcome to Video Maker FX. Boy, do I wish I waladii vendors ka ahayd way alaabta ka sheekeynayaan waxaana qoraal alaabta ku saabsan tahay
adiga hadhow marka alaabta xayisiinayso ama suuqeynayso ku fududaanaysa inaad suuqeyso sababtoo macluumaadku halkaan ku qoran yihiin macluumaadkan unbaa hadhow raaci doontaa marka alaabta waa isla aragnay alaabta markaan isla aragnay marka waa codsanaynaa marka si aan u codsano marka hoos baa imaanaya halkaana marka lagu qoraa codsiga marka vendorka ama ninka iskale waxaa la yidhahdaa Petro Rosak marka waxaa kugu filan wax tira badan meeshaan loo baahanid ama English tira badan hello Petro ninka magaciisa taa qortid waxaa iska tiraahdaa let me promote the product to my loyal audience, something like that, and my loyal 50k audience. waa tusaale weey adigu waxba in yar isugu ka aadan baad qoraysaa waxa la rabaa kaliya inaad qofkan waa ganacsade waa vendor alaabu leeyahay marka inaad ku qancin kartid in alaabtan adigu aad suuq u heli kartid halkaan tigare kadib waxa oranaysaa request approve codsigii waa diraya yani codsigii waa diraysa marka wuxuu ku soo qorayaa pending approval oo pending waa codsigii waa dirsan okay habka labaad baan rabaa inaan xuso marka oo loo sameeyo loo doorto aan ku noqono dashboardka habka labaad alaabta loo doorto awal affiliates baan tagnay hadda waxay tegaysaa products marka products tagto waxaad tegaysaa top sellers habkan marka waxaa badanaa la sameeyaa alaabta suuqa ugu fiican leh maalmahan si aad ula soo baxdo halkaan la tagaa rankigii baa ku soo baxay awal meeshii hore nooma soo baxeen waxaas rankigii baa laakiin hadda inoo soo baxay number 1 number 2 number 3 alaabta ugu horeysa alaabta ku xigta alaabta maalmahan waxa weeye ilaa maanta ilaa shalay ilaa 7 bari u dambeysay ilaa 3 bari u dambeeyay waad ku dhufan kartaa marka adaa ku dhufanay way soo bedelaysaa rankigii 3 bari u dambeeyay oo dhan ma yesterday baa rabtaa ma waxaa rabtaa maanta today saasi marka soo bedbelaysaa marka u baahan tahay alaab maanta oo aad maanta u soconaysa alaabta wax tegaysa halkaan marka sida aan muuqaalka ku soo aragnay affiliate details ka tegaysa kadib waxa lagu geenayaa isla meeshii alaabta laga codsanayay waa soo aragnay lagu geenayaa isla meeshii waa kana marka inaga hadda marna in alaabta codsano wax kala raaw marka inaan xuso dashboardkina ku xidhay qaabkaas marka alaabta waa codsan kartaa sidoo kale waxaan sameeynaa alaabta la codsado xagee soo gashaa alaabta ee lagu aqbalo I mean xageen soo gelisaa affiliates baa oranaysa kadib approved products baa leedahay alaabta markii laga aqbalo oo codsiga laga soo aqbalo diiwaankan ama liiskan soo gelisaa halkaan soo gelisaa markay halkaan soo gasho marka alaabta kuwaana marka hadda aniga igu jira su'aalahan kale get links baa ku soo qormaya get link marka get link baa oranaysa bas waa kana copy baa leedahay marka waa ka haystaa linkiga saasa ku haystaa linkigan waa linkigi waa affiliate link baa leedahay you affiliate link waa linkigi hadii aan qof soo raaco aan commission ku heli lahaa hal mar aan ku noqdo qaybtan waxaan rabaa hal mar inaan wax yar inaan ka inta u dambaysa waxa u dambeeyo rabaa inaan ka tuso logan meeshii horeysa aan muuqaalka ku bilaabay find products ka baa waxaan rabaa inaan wax yar ka tuso okay waa meeshii horeysa markii hore aan aragnay waxaan rabaa marka inaan ka tuso category awal kuma tusin waxa dooran ka dhaca alaabta category ku baari kartaa yani waa filter weey alaab ku saabsan business finance cooking food ku saabsan education employment waxa alaab ku saabsan salaam fartan ku dhufo waa isbedelaysaa alaab saas isu bedelaysaa oo alaab waxa soo baxaysa business and finance ku saabsan waxaad ku dhufanaysaa
marka waa niche ka adiga aragtid ama nooca aragtid alaabta aragtid inay xaysiisid qaabka waa u baaran kartaa alaab ku saabsan su'aalahan kale smartphones ka waxaas mobilada waa ka isbedelaysa qaabkaas ku imaanaysa saasoo kale sub categories baa jira oo wax ka sii daran kartaa apps oo waxaan kugu dooran sub category-geedii wey search baa ku dhufanaysaa haddii aad inaad ku baarto okay waxaa halkan ku qori kartaa alaab key waxa weeye keyword ama xaraf oo aad rabtid inaad ku raadisid alaabta magaceeda su'aalahan kale baa ku raadin kartaa su'aalahan kale waxaa oran kartaa oo kale software okay waa keyword baa ku raadisay wey marka saas oo kale waa u baari kartaa waa filter sidoo kale halkan waa hadaa aad taabatid aad click garaysid waxa weeye alaabta JVZoo Pay only ah ama alaabta ma taqaanaa paymentigii muuqaalka hore aad soo daawatay JVZoo Pay waa habka lacagta anagu aan ku helayno oo waliba PayPal-ka ka saddex samaysanay marka alaab JVZoo Pay ah oo aan hababka kala ahayn oo marka lacagta commissionka qaabka ku siinay okay marka intaas waa u baahan tahay isticmaalkeeda intaas productska meeshaas top sellerska affiliateska inta hadda aan soo tusay kaliya qaabka u dooran kartaa kadibna alaabta get link baa oranaysaa waxay ku soo gelaysaa halkan approve alaabta waxa weeye approve lagu aqbalay ama lagu ogol yahay in link lagu siiyo alaabta halkan ku soo gasho dhan waxa ku samayn kartaa in link qaadatid marka linkiga marka qaadatidna waxaad samaynaysaa ku dhiman kaliya waa suuqeynti waxaan malaynayaa in aad fahamtay qaybtan JVZoo okay muuqaalka hore haddii aadan soo daawo muuqaalka hore JVZoo sida loo sameeyo sidoo kale JVZoo waa affiliate network haddii aadan fahamsanayn waxaad soo daawataa muuqaal kale oo aan uga sheekeynayo waxa ay affiliate network tahay iyo affiliate marketing oo dhan waxa uu yahay isna muuqaal aan ka sameeyay baa jira soo dhawaada mar kale haddii channelka aad weli subscribe karayn ama aad cusub tahay fadlan taawo meeshaas waxa weeye subscribe kaasi aad noola socotid noo rukumid gambaleelkana furo sidoo kale idinka ilaawa asxaabta waxa weeye taxanahan waa affiliate marketing taxana ah oo taxanayaal badan baa rabaa inaan kanaalkan aad kala socotaan waa playlist u gaar ah baan sameeyay affiliate marketing marka waxaas sidoo kale soo socda taxanayaal kale oo aan affiliate marketing ahayn sida freelancing oo kale software as a business ama SaaS wax la yiraahdo kale noocyo badan oo tiro badan waxyaabaha aan blogga ka qorayo dhan content creation oo kale iyo YouTube oo kale waxyaabo badan baa soo socda marka mowduucyo tiro badan oo aan awal ebook ka qoray ayaan muuqaallo kala duwan iyo taxanayaal kala duwan u samayn doonaa marka sida ula socda sidoo kale bookga laftirkiisa haddii aad rabtid hadda inaad hal mar wada akhrisid asagana description ayaa ka dalban kartaa waa ebook 140 book ah ka kooban 12 cutub oo waxa dhan ku soo koobay toolska iyo waxyaabaha linkska iyo waxyaabo badan ma taqaanaa helpful baa ku jira marka laga tago macluumaad ku qoran iyo theory-ga waxyaabaha kale marka laga tago waxyaabaha caadi ah toos u tilmaamaya baa ku jira isagana description ayaa ka dalban kartaa waa salaamaya maalinta idin wacnaad